maalin ka hor ayay ahayd markii la doortay Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale maayarka cusub ee degmada Gaalkacyo iyo waliba sidoo kale ku xigeenkiisa Maxamed Cabdi Cilmi iyadoo magaalada Gaalkacyo haatan ay yeelanayso maayar iyo maayar ku xigeen cusub oo maalmihii u dambeysay ololihiisu ka socday magaalada Gaalkacyo qaar ka mid ah shacabka reer Gaalkacyo oo aan wax ka weydiinay sida ay u arkaan maayarka cusub ee degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa sheegay in ay si weyn u soo dhaweynayaan maayarka iyo maayar ku xigeenka waa kuwana qaar ka mid ah shacabka reer Gaalkacyo oo la hadlay muuqaal baahiyaha Shabeelle TV sidoo kale mudane Cabdiraxmaan Sheekh Xasan waxa la hambalyo waa nin aad ugu qalma wax ogaal ah aqoonyana wax badan u soo joogay Gaalkacyina waaxigeeda waxaan rajaynaynaa inuu isbedel cusub iyo awood cusub la yimaado waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku guuliyo waxaan baliyanayaa duqa magaalada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale waxa la hambalyo أنا وأنا حزب كسر شيء لكن هذا أفرط سنة ولا شغالنا وتاجرتنا هاي قف حزب تاجر قف حزب ما أسأل تلا ولا أسأل تاجرتنا هاي أسأل الله شغالنا وعن كعسنا هي كوي لا شغالنا هي يسكر إيمان أفرط سنة لما يسنو يعني الله مرمن وأنا ودك رسايا وأنا مقابل بالحكينا هي أنا معارض محافظ معارض حنلها إن الله شغال شعب وينها reer Gaalkacyo dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo reer Gaalkacyo maantay degmada Gaalkacyo waxay ku guuleysatay waa degmadii koowaad oo loo dhiso golo deegaan iyo maayar ku xigeen maasha Allah ayaan leenahay maayarka cusub Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale waxaan leenahay waa nin aqoon-yahan ah waa nin dhalinyaro ah waa nin culummo maasha Allah ayaan leenahay reer Gaalkacyo maanta nasiib waxay u yeesheen nin dhalinyaro oo da'yar oo haddana nin culummo ah maasha Allah ayaan leenahay si wada jir ayaan soo dhaweynaynaa haddaan nahay bulsho weynta reer Gaalkacyo ganacsato dhalinyaro odayaal waxaan leenahay si wada jir ah ayay maaragtay farxad u wada taabatay waana soo dhaweynaynaa maayarka cusub halkan waxaan balyo uga dirayaa duqa degmada Gaalkacyo oo shalay ku guuleystay Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale waxaan leeyahay hambalyo waa hawl aad loo sugayay oo in badan laga soo shaqeeyay oo maamulka iyo odayaasha iyo culimada iyo dhammaan waxaan leeyahay waa ku maasantiin hawsha aad qabateen waxaana magaalada u soo baxay nin ku habboona marka insha Allah shaqo fiican ayaan ka sugaynaa waxaan leenahay xilkaas lagu dhiibay Allah kula garab galo aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay ganacsatada magaalada Gaalkacyo hambalyo waxaan hambalyeenayaa maayarka iyo maayar ku-xigeenka magaalada duqa degmada Gaalkacyo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waana soo dhaweynaynaa insha Allah biidnillaahi kariim waan la shaqay doonaa aad iyo aad la shaqay doonaa waxaan dooranay maayarkaas oo ah maayar aan ku aamini karno magaalada Gaalkacyo oo aan sooran karo waxba ka bedeli karaa waa shakhsi dhinac walba markii laga fiiriyo aan ku tilmaami karno inuu mudan yahay meesha haday noqon dhinaca dhalinyarada horumarinteeda magaalada oo aad u jeedin bilicdeeda sida ay tahay inuu wax ka bedeli doono dad badan oo buusishina ay xaq u lahaayeen ama dad badan oo wax mudnaa oo la gacan bidxeeyeen ay sugahayaan taas marka aan leeyahay waxaan ula jeedaa magaalada Gaalkacyo wax badan bay tabaysaa waxa ay tabaysana waxa kamid ah dhinaca jidadka oo u jeedin sida ay u dandareysan tahay dhinaca isdhaxgalka bulshada intaas oo dhan gudoomiye waxaan ku leenahay ka qayb qaado mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leenahay Cabdiraxmaan kun jari ku guuleyso shacabka Gaalkacyana garbaagay taagan iyadoo tariiq ku soo aadayso iyadoo maalin ka hor la doortay Cabdiraxmaan Sheekh Xasan iyo ku xigeenkiisa Maxamed Muxidiin Saxan Soxo Shabeelle TV Gaalkacyo